وقت aad u caqabad badan oo waqti doorasho mar hadii la galo waa arin siyaasadeed oo ishaysad iyo farataagtaag iyo siyaasad iyo kursi laga bilaabo ka xildhibaanka iyo ka odayga iyo ka madaxweynaha raadinaya speakerka kulli markii la isku daro waa xilli dadku wixii miyir qaba la hadlaysiiraan laakiin waxa asala in la fuliyo waxyaalaha la isku ogaado lagana taxadaro wax kasta oo dhibaato khalkhal gelinaya waa inaan xusuusan karayno waliba dhalinyaradu waa inay garan karayso wadankani meesha uu ka yimid iyo marxaladihii aan soo maray waa inaan garan karayno 92 iyo dadka majaacada u dhimaanayay iyo qaxa jiray inta u leekaa waxaan xusuusnahay anigoo kunyo baro maraya inaan dad wax siiyo wixii aan soo taagay 20 qof inay isku kordhacaysaa qofku ma taagnaan karayo waana nasiib darro marka inaan garan weyno wixii aan shalay soo maray maanta deganaanshaha iyo xasiloonida aan helaynaa kaliya waxay tahay deganaanshaha siyaasadeed iyo kala guurka siyaasaddu marba siduu ku yimaado iyo doorasho inay dhacdo oo kuga san ay noqoto la isu wareejiyo xarig isu isdaba wareega sababta waynu gaari doonaa marxaladda ugu dambaysa iyadoo ay doorasho dhib badan tahay ogtiin hadda Mareykanka oo qarniyo soo dhexsameyn jiray doorasho boqolaal sano yaa hadda aad arkaysaa inta jiitan iyo wax ka jiray maxaad u maleynaysaa inaga kuwaas institutionno iyo sharciyo waxay isku xakameeyaan bay helayaan oo waxa xakamkanagu uu yahay oday qabiil waxa wax kala xukumayay oo ay tahay ma taqaana cid wax fulinaysa iyo implementation kala imanaysaa qoriga uu yahay iyo qabiilka waxa soo dhawaad garan kartaan waxa ay keeni karayso iyo mushkiladu inta ay saameyn yeelan karayso hadii marka aanan ka fakirin waliba cid kasto mas'uuliyad haysaay aynan garanin waxa marka meesha yaalay waa arin aad iyo aad dhibaato xawar baan soo tan waxaanu ka wada hadalnay waxa la yiraahdaa doorashaha la qabto sidaa loo qabto state wali Allah meelood lagu qabto aan idin weydiiyay maanta guddi baa la iga sugayaa waxa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano waxaan sameynaa waxaan noo qiran laba caasimad gobol baa la yiri inaan Kismaayo iyo Galbeed ku qabano Jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa jabadii ciidan baa lagu sii daayay waa goorma jabadii 9-aadkii la bilaabay maanta soo noqotay jabad wax lagu raadin karaa jabad inay maanta noqoto inay iyadu ka taliso waxa kaaga daran waxay wataan warqad gobernatoraha gobolka Gedo ee Jubbaland maamulka Jubbaland ee kan who is Jubbaland anagu aanan maamulaynin ee Jubbaland xagee joogta shalay baan arkay warqad nin soo qoray oo leeyahay maamulka doolow iyo kan iyo waxaan kale maalin walba wareegtay Jubbaland war Jubbaland ayaan darana goormaan jabadnimo ka soo gudubnay doorashada aan qabanaynay waa in waxaan ku heshiinay dhacdo waa sax waxaan rabnaa doorashadaas inay dhacdo waqtigeeda ku dhacdo dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyay waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba loo meelood ku qabto waxaan diyaar u nahay inaanu qabano oo labadii meelood ku qabano laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee gudoomiyihii gobolka uu tago ee ku-xigeenkiisa uu tago ee maamulada degmooyinka ay tagaan ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku sameyn karayaan laakiin doorasho kuma dhacayso sida ay maanta tahay iyo nooca afduub uu yahay doorasho kuma dhacayso wadankani wuxuu u baahan yahay in wax lagu heshiiyo wixii lagu heshiiyana la fuliyo aan dirno guddi xagaan u diraa dadka maanta mas'uuliyadda wadanku ay saaran tahay madaxweynaha iyo cidii maamulka dhexe dawladda federaalka waxa looga baahan yahay inay kala saaraan habraaca doorashada nooca doorashada iyo sida u dhacaysa iyo campaign-kooda siyaasadeed waa inay kala lama noqdaan ma doonayna doorasho u dhacaysa harqaan baan tagayaa dharkan aan tolanayaa sidaa la ii doorto no ma dhacaysa taas waa in loo sinaado oo noqoto doorashadu mid loo simeeyahay oo mid damaandhow ay musharaxiintu ka hadlayeen oo ilaahay war muwaadiniin baan leh xuquuqdeeda aan helo waa shay meel looga wareegan lahayn waa in la isqanciyo shalay baa 2016 waxaa la iskoola buluusiyaha loo diyaariyo doorasho inay ka dhacdo maxaa bedelay maxaa keenay in
in iskoola bulisiya laga soo wareejiyo taliyihii baa intuu hadlay wuxuu ku hadlay hadal ah campaign iyo madaxweynihii xilligaa joogay iyo sida loo dhisay qaabku noqonayo idan dhexdhexaad ma noqon karaysa noqonaysa waa inaan kulligeen ka wada taxadaro oo ay noo sinaadaan dadka musharaxiinta iyo doorashada iyo si ay u dhacayso ay noqoto mid dadku ay u siman yihiin oo qof waliba uu ku qanacsan yahay waxa dhacayo la tixgeliyo waa in concernka iyo cabashada la tixgeliyo annagu Jubbaland waliba wuxuu yiri waxaaruhu hooyadood geerida way ula siman yihiin laakiin mareegta u dheer waxa annaga haysata kuraastii iyo deegaanadan ku qaban lahayn iyo caqabad inay wali gobolka Gedo naga haysto oo dawladdu ilaa hadda ay jabhadeen ku jirto dawladnimadii nooca looga gudbo waxaan rabaa inaan gaarsiiyo dawladda federaalka doorashada aan qaban xilliga ku ballanayna hal lagu qabto hana la soo wareejiyo maamulada hana laga saaro jabhadaha iyo warqadaha calaamada Jubbaland ee maamul bal la qorayo askartu ay qorayso ha laga daayo waxaan leeyahay hal la tixgeliyo dadka musharaxiinta aanu maanta musharax ma yihiin uma sharaxani dawladda federaalka kursiga madaxweynaha iyo speakerka midna uma sharaxani laakiin waxaan rabaa man doonayo inaan anu chief campaigner noqdo anoo mas'uuliyad kala hayo ee waxaan rabaa wax loo siman yahay oo dadku xuquuqay wada leeyihiin inay meesha ka dhacdo oo aan tixgelino xaq dhowro dadka wax cabanaya waxay ku hadlayaan ay sheeganayaan oo la isu yimaado oo wadankan la badbaadiyo shir badbaado qaran la isugu yimaado la taabto dadka cabanaya maxay ka cabanayaan waxa la sheeganayaa samaxayta waxa laga hadlay kuraasta Soomaaliland waxaan rabaa inaan wax yar iyada ka sheego Soomaaliland waxay sheegtay waxaan nahay jamhuuriyad madax bannaan laakiin 4.5 wax lagu qaybsaday dadka waqooyi ka soo jeeday waxa la yiraahdo kootadooda sida la yeelo sida nahaadeen inta xal laga gaaray 2016 markaan ka hadlaynay waxa la yiri wariyaha mas'uuliyadda ugu sareeya waxa la yiri waxa jooga ra'iisul wasaare ku-xigeenkii maanta waxa jooga saddex qof ee ugu sareysa madaxweynaha iyo labada guddoon ee baarlamaanka nin kamid ah guddoomiyaha aqalka sare oo ka soo jeeda deegaankaas waay cid ka mudan maanta lagu ixtiraami lahaa waxa uu kaga sii daran yahay waliba inuu yahay aqalka sare oo matalaya dawlad goboleedyada hadduu dawlad goboleedyada matalayo aniga maanta uu matalayo Jubbaland aan joogo ma wuxuu matali waayay mid uu ka soo jeeday magaceeda uu ku sheeganayo qaabka ay tahay baa ku noqotay ma inuu matali waayaa suurtagal noqonaysa waxaan ku baaqayaa oo beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada dawlad goboleedyada kullu ugu baaqaya wadankaani wuxuu u baahan yahay badbaado kullama waqtigu sii jiitamo dib iyo caqabad buu galayaa yaan la isugu jawaabin waxyaalo keeni kara dhibaato iyo mushkilad waan naqaanaa dhibaato wayna soo martay meesha inay gaadhisayna waan garanaynaa aan ixtiraamno xaqa ay leeyihiin dadka wax sheeganayay waa in la ajiif garayo la saxo waxa laga cabanayo waxa la tabanayo waa in si cad baan u sheegayaa oo si hoos aan u sheegayaa oo kor baan u sheegayaa Jubbaland ay u madax bannaanaato doorashadeeda iyo deegaanadeeda waa in madaxda qaranku haday madaxweynuhu uu yahay musharax waa inuu processka ka dhaxbaxa doorashada oo ula sinaado musharaxiinta kale banaanna uu ka istaago waxaan diyaar u nahay cabashada laga hadlayay haddii gudiyada inta aan hadda soo sheegnay afarta aan soo magacoonay labada xalinta khilaafaadka iyo labada fiid aan soo magacoonay gudiga heer federaal haddii lagu sheego inay khalad ku jiraan waxaan diyaarahay afarta waa inaan la noqono oo afar kale ku soo bedelo annagoo tixgelinayna cabashada ay sheeganayaan dadka musharaxiinta markaan taa xalinaan kadib waxaan galaynaa inaan kuwii kale aanu keenno yaa la ii soo dirayaa inaan doorasho qabtaan rabaa 8 qof intaan magacaabo 3 baan ku soo daraynaa sida hala yeelo oo yaa qabanaya waayahay waa inaan ka taxadaro waan ku celinayaa 1 2 3 4 Jubbaland doorashadeeda waa inay u madax bannaanaato deegaanada gobolka Gedo waa in gacanta maamulka lagu soo celiyo